wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta Soomaaliland mudane Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan oo ay weheliyaan mas'uuliyiin kamid ah hay'adda wadooyinka Soomaaliland iyo sidoo kale maamulka gobolka Gabiley maamulka degmada Gabiley iyo maamulka degmada Wajaale ayaa maanta kormeer ballaaran ku tagay wadada isku xidha magaalada Wajaale iyo Kalabayd oo Soomaaliland u muhiim ah isla markaasina isku xidha wadamada Itoobiya iyo Soomaaliland halkaasoo wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta soo indheeyay dib u dhis iyo dayactir lagu samayn doono wadadaasi oo ay dhawaan roob la xaadiyay ay ka deen gobolada galbeedka ay khasaaro soo gaarsiiyeen wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta Soomaaliland mudane Cali Xasan Maxamed oo halkaasi hadallo kooban ka jeediyay ayaa ku nuuxnuuxsaday ujeedada iyo ahmiyadda ay wadadani leedahay isagoo jawaab adagna ka bixiyay hadallo ka soo yeedhay xubno kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka Gabiley taasoo sidoo kale uu sheegay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeyntu in loo baahan yahay in laga qayb qaato dayactirka wadooyinka cid kastoo mas'uuliyadda qaranka qaba laakiin قربيه لامي هو هذا دفاع يا دينعن وضاتي جبيه وحنا وصلها بيها ودول مري لامي وصفتها أرنت كلامنا وحويان كالفيرتسكي بندوين كي بيها أيا كوير حبض قرا مش كتير كوا كان الماري ونشيء كله لبح qorshaan doon inaan keenno qabano oo midi waxa weeyaan hadda in garbihii daad ku qaaday la soo celiyo waa qoys garooyinkii iyo cagafcagafyadii wixii baa diyaar hawshaas way naga gabagabeysaa dhowr kashay soo socota hadda la tan kalena waxa la sugayaa marka biyo yaraadaan oo imka hawsha lama geli karo waa wadadanu waxa weeyaan wadooyinkii dhismay intii dawladda oo hogaamiya madaxweyne Siilaan yahay xukunka haysay qiimiga waxa ku soo kordhay dad wax matarayaal oo wadooyinka dhex taagan oo intii saxaafad u yeedhaan ama mobile wax iskaga duubaan dabeedna halkaa waxa lagama qaban halkaa kale waxa lagama qaban wax alla waxay ku taraan ma jirto dhaqaale arrin bay kugu biirinayaan iyo adduun laakiin wax matarayaasha wadooyinka dhex buuqaya iyadoo la shaqeynayaan haddii aan waxba tarayn wadooyinka buuqa kala dul dhaqaa qabanayana kuleena wadarta kulli shaqadana waa noo socotaa وانا دمايسترنا سيدي لو تلقى وانا دمايستري دونا مركو روب قادنا وانا دماي وبنينا لأن هذا نمك قرضنا ونمشي بيه بحيين كبحيين أصمينه باورت بيلا مران مرة دقيقة جليا مركو حلسوينا مركو روب وير قادو إن نمشي بيه كبحيين بايب كي جلينا هدي لهايدي سيدي لو قرر هيستلي بتاسي sidoo kale halkaasi waxaa la kooban ka jeediyay maayarka magaalada Gabiley Amiin Cumar Cabdi iyo sidoo kale barasaabka gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdullaahi maayarka degmada Wajaale Cabdi Casiis Taleebaan iyo xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Faarax oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabiley oo dhamaantoodba soo dhaweeyay wasiirka howlaha guud iyo guryeynta howlaha shaqo oo ku joogo gobolkani Gabiley si fiican bay shaqadu u socotaa wixii de kumeel gaadhay laga qaban karayna waa laga qabanaya mustaqbalka runtii wixii uga qorshaysan yahay abaar baynu isugu yeeynay bariyahan bay iyo dhibaatayna gaarsiisay imikana nimcada ilaahay noo shubay iyo nusqaanteedii baynu isugu nimaadnaa ama qoftaad qaaday ha noqdo ama wado gooday ha noqdo intaaba waxa weeye gurmaduun baynu ku jirnaa dawladda iyo dad ahaanba aad baan ugu mahad celinayaa runtii tabaynta iyo wax ka qabadka kaabadan iyo ay biyuhu waxyeeleeyeen insha Allah taala waana dhamaan doontaa hawshuna si fiican bay u socotaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wasiirka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee wax qabadkiisii iyo hawshiisii wasiir ilaa heer degmo shaqadiisii iyo nidaamkiisii oo ku talagalay lagu shaqeynayo oo had iyo jeer ka warhaya dadkii isku doortay iyo xukuumaddiisa uu hormoodka u yahay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo maareeyaha wadooyinka oo maalinta dowladda ku soo maray wadada Goolay Wajaale iyo Kalabayd waxaysa oo iyaguna si degdeg ah u bilaabay maantana aynu goobjoog ka nahay wax qabadka ay bilaabeen marka intaas Nimcaan Deeg Ibrahim TV qaranka Gabiley